wadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo xafiiskiisa kula yeelanayo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye anigoo wasiirka uga mahadcelinaya waqtigiisa qaaliga ah oo siiyay Hon Cable TV ayaan waxaan rabaa bal wasiirka marka hore inuu ku soo dhaweeyo TV-ga iyo waraysiga mudane wasiir soo dhawo bal warran waxaad warbixin kooban naga siisaa muddadii ay wasaaradda hadda ku soo biirtay waxyaabaha ku qabsoomay iyo waxa aan ku qabsoomin aad horta inaad qabato adoo noo soo koobaya bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore soo mahadsan tahay telefishinka Hon Cable TV-na waxaan leeyahay runtii mahadsanidin riyahan shaqooyinka fiican oo wado runtii dalka Soomaaliya daawad ogtay dal burburay weeye wasaaradda markaa nimid wax badan ayaan qorsheynay oo ay ugu horeyso inaan warbaahinta dawladda horumarino inaan guud ahaan warbaahinta Soomaaliyeed wixii aan ku tari karno ku tarno gaarka loo leeyahay sidoo kale dalxiiskii Soomaaliyeed iyo dhaqankii oo runtii ahaan jiray manhaj ama Soomaalidu intaanay dawladnimada xataa qaadan dhaqanku aha dastuur waxay isku xalliso waxay ku heshiiso waxay ku nabadowdo inaanu isagana soo noolayno marka waxyaalo badan ayaa runtii nooga qabsoomay dhaqanka oo kale waad ogeyd riyahan oo dhan muddo 4 bilood waxaan wadnay kulamo iyo aanu sameynayno waxyaha kala duwan ee bulshada aanu dib ugu soo noolayno dhaqankii Soomaaliyeed annagoo u adeegsanay runtii inaanu dib u heshiisiin iyo isjeclaansho ummadda dhexdeeda ka abuurno xagga warbaahinta dawladda horumar badan baanu sameynay marka hore structure-kii wasaaradda ayaanu hagaajinay oo shaqada ay hayso ku aadinay waxaanu sameynay oo aan hore u jirin xarunta production-ka ama xarunta wax soo saarka warbaahinta dawladda iyo warbaahinta gaarka ah oo u qabata wararka iyo barnaamijyada warbaahinta gaarka ina awood u leedahay wixii ay u baahato inay ka qaadato ta dawladduna ay ku socoto waxaanu dib u kicinay wakaaladii wararka ee Sona waxaan furnay oo heshiisyo la soo galnay dawladda waaweyn oo runtii ay ku jirto dawladda Finland oo sameysay studio cusub oo runtii casriya waxaanu sameynay live ayaanu ka dhignay TV-ga iyo baarlamaanka doodihiisa ka socda oo nagu talagalnay inaanu ku gaadhno bulshada Soomaaliyeed maadaama aanay awood u lahayn baarlamaanka doodihiisa ka soo qayb gasho meeshana looga hadlayo dib u dhiskii Soomaaliya dastuurkii oo dib loo eegayo statiskii oo dhismaya waxaan ugu talagalnay wixii hadda ka dambeeya doodaha baarlamaanka in ay live ka dhigtaan waxaan nagu martay qaadayna dabcan inaanu TV-ga qaranka oo kaliya ahaan TV-yada gaarka ah ina ay live ka qaataan oo waanu siinayna TV-yada gaarka fursad u siinaysan in iyagu dadkooda daawadayaashooda gaarsiiyaan in doodaha baarlamaanka live gaarsiiyaan oo noo socda qorshahaasi idinka way ku martay waa mahadsantahay waa shaqo fiican waa runtii waa kaaga mahadcelinaynaa muddada wasiirka aad ahayd shaqada fiican ee wasaaradda ka qabatay haddaan nahay bahda saxaafadda ee wasaaradda warfaafinta gaar ahaan marka laga reebo dhaqanka iyo dalxiiska wasaaradda ayadana matasha mid dawladeed iyo mid shacabba wasaaradda waxaa ku soo dhaca tababaro waxaa ku soo dhaca qalab waxaa ku soo dhaca dib u habeyn waxaa ku soo dhaca horumarin waxaa lagu xantaa inay iyadu soo koobtay taa ka waran waa mahadsan tahay horta waa runtii sidaan kuu sheegay qorshaha annaka noo degsan siyaasadayada marka dhinaca warfaafinta la fiiriyo waxa weeye iyo waajibka naloo xilsaaray annaka laftigeeda iyo waxa weeye inaanu warbaahinta Soomaaliyeed horumarino warbaahin ahaan iyo kaadir ahaan dadka ka shaqeeya labadaba inaanu horumarino waayo warbaahinta Soomaaliyeed runtii waxaan dhihi karaa waa furihii inta Soomaaliya ka nool badbaadadii weeye warkay ku kala qaadan jireen duruufaha adag ee dadku ku jiray ku kala qaadan jireen meeshii fiican meeshii dhibaato ka jirto subaxyada qaar aniga laftigaygu marka aan shaqo tagayo waxaan ku shaqo tagi jiray in raadiyo ii sheego meesha aadaadayso dagaal ka socday maaliga saaka go'an iyo aan goonayn marka waan amaanaya siyaasad ahaan waxay noo tahay warbaahinta Soomaaliyeed inay noqoto warbaahin xoog leh warbaahin Soomaaliya xoog leh warbaahin Afrika xoog leh inay noqoto ayaanu aaminsanahay sanadka hadda lagu jiraana sanadkii information-ka marka ummadeedu information waadix ah hesho oo aanay dawladdu ka helin dhinac kale balance kare ka hesho taas horta waa siyaasadeeda waa run waxa aanu qabanaa wayiriyeen wasaaradana intaan joogay
tababar badan marka laga reebo ka gudaha ama ku samaysano barnaamijka kamaan jirin laakiin hadda ayaa qorshayaal badan inooga socdaan Suudaan iyo Kuwait iyo meelo badan oo wadamada ay maragtay saaxiibka nahay nooga socdaan inaad wax ka siisaan ma laga yaabaa wallahi waa ballan qaadayna inaan wax ka siino warbaahinta xorta wax ka siino hadda waxaan rajo ka qabnaa dhawaan inaan dad fiican u dirno Suudaan marka waa ku martiqaadayna waa mana ahaynaanu xabad ugu martiqaadayna stationada waaweyn oo dhan waraaq aan soo qori doonaa ay qof ama laba ku soo dirsadaan xagga kale qalabka waad ogtahay hadda dhow halkan waxa ku dhamaaday shir weyn oo aan ku martiqaadnay wasiiradii dawladda goboleedyada aan ku martiqaadnay stationska waaweyn iyo ururada warbaahinta sidoo kale waxaan ku martiqaadnay hay'adaha taageera warbaahinta waxaan uga jeednay number 1 inaanu dawlad ahaan siyaasadda aan warbaahinta Soomaaliya ku horumarinayno heer federaal iyo heer gobol meel isla dhigno number 2 inaanu warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo annagu isku aragti iyo isku barnaamij samaysan waxaan qorsheynay inaan sameeyno wax la dhaho 5 years plan for Somali media development qorshaha 5 sano ee lagu horumariyo warbaahinta Soomaaliyeed ta dawladda iyo tan gaarka loo leeyahay labadaba marka qorshahaas waxa loo balansan yahay in la ansixiyo already hadda uu socdaa draaftiisi 12 January ayaa halka shirka ka dhici doona aan ku martiqaadayno owners-ka farxaanka gudiga aan ku martiqaadayno markaas isla qorshaysano qorshaha horumarinta waxaanu sidoo kale ogeysiinay hay'adaha taageera iyo dawladaha taageera warbaahinta Soomaalida inaanay habaysnayn qaabka ay u taageeraan warbaahinta Soomaalida oo laga yaabo hal tababar oo isku model in 10 hay'adood ay soo bandhigto waliba ay soo bandhigaan marka sanadku dhamaanayo oo in lacagta baa naga dhacaysa si fiican marka qorshe xumo ah waxaan ugu talagalnay marka hay'adahaas iyo dawladaha warbaahinta caawinayno adigu tababarka naga caaw adigu qalabka naga caaw adigu tiknoolajiyada naga caaw oo aanu marka hore banaano maxaad Soomaaliya u haysaa lacagtii wixii Soomaaliya loogu talagalay waxay ku dhumeen warbaahinta tooska baanu siiyay dawladda dhaxaanu siiyay dawladda gobolka iyadan cid la xisaabtantaa waa taa qodobkaas waa u imaanaya aan halka ku daray waxaanu doonaynaa marka taasna si fiican aanu isticmaalno oo hay'adaha iyo dawladaha media Soomaaliya taageera midba aag siino si aagana ku xisaabtan marka waxaan filayaa kobaca la helaya aqoon iyo wax leh waa taa waa u imaanaya kulanka halkan ka dhacay maanta dalkeena waa soo kabanaya sidii hore ma wasaaradda warfaafintuna waxay ka mid tahay meesha kaliya bulshada la doonayo in laga wacyigeliyo waa laga soo gudbay xilligii kufaakaca iyo jabhadaynta iyo waxa maxaa wasaaradda warfaafinta ka hortaagan inay keento kaadiriyiin suxufiyiin waayo araga dalka iyo dibaddaba jooga si ay bulshada wax uga bedelaan oo bulshada dawladnimada u baraan oo wadaniyadda u baraan inta aad ku mashquulsan tihiin wiilasha yaryarka iyo gabdhaha yaryarka ee hadda ka shaqeynaya runtii dadaal badan muujinaya welcome waxaan naga hortaagan marka waa dhaqaale xumo maalin kasta ayaanu dad waaweyn oo ama soo bartay media ama khibrad hore lahaa ku invite garaynaa inay noo yimaadaan oo nala sameeyaan barnaamijyo wacyigelineed barnaamijyo dib u heshiisiineed barnaamijyo wadaniyadeed barnaamijyo dadka Soomaaliyeed hagaya qof waliba wuxuu yiraahdaa haddaad hay'ad lacag iga siinayn kuma shaqeyn karo dawladdu mushaharkeedu joogto maaha dawladda mushaharkeedu waa yar yahay anigu kuma shaqeyn karo UN ka lacag ma iga siinaysaa markaan ku shaqeeyo horta mushkiladda ugu weyn taas ma hayno sacrifices Soomaaliyeed qofna ma haysan sida u sabareeraan sida wiilashan u bareereen wiilasha yar way bareereen laakiin maalin kastaan raadinaa qof walba wuxuu yiraahdaa haddaad UN ka iga raadinayso inaad iga siiso mushahar aniguna markaa ku shaqeeyo production center baan sameynay waa ku sheegay waa u weynay dad khibrad weyn leh waa u weynay dad soo bartay media shaada haysta way jiraan laakiin ma hayno dhaqaalihii uma hayno hadda shirka jaraa'idana soo saarnay waxa ku jiray in Soomaaliya as general loo sameeyo golaha wacyigelinta qaran in loo sameeyo golahaas aanu sameyn doonaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa la sheer gareynay waxaanu doonaynaa inaanu xarunta wacyigelinta sameyno adiga marka warbaahinta xorta maalin walba ay timaado waxay yiraahdaan wasiir waxaan doonaynaa inaanu ka qayb qaadano si adiga oo dareen kugu jirto barnaamijyo waxtar haddaad haysaan way idii sii daynaa free
وانا امانه ودي warbaahinta laakiin capacity-ga iyagu yar yahay وين yar yahay dadka aan haysano oo capacity-gi wax ka dhimay وين عود waa su'aal baa marka meesha imaanaysa waxa imaanaysa wasaaradda warfaafintu waxay la miisaaniyad tahay wasaaradaha kale dalka budgetka dawladda bixisa ka soo daaho ama ha u jiro waxay haddana la mid yihiin shaqo ahaan tibiyada iyo idaacadaha private-ka oo waxay qaataan ay dhahiyo waxay qaataan hay'isiyo shirkado kambaniya wasaaradaha hay'adaha gaarka loo leeyahay barnaamijyadooda mashaariicdooda qaataan ogeysiisyo lacagaas xagga la geeyaa aniga waan idhaayada gali horta marka hore sabtan guud aan galo horta Soomaaliya system-kan cusub ee ay gashay iyo qaabka ay doonayso inay u noolaato ama dawlad u noqoto iyo dawlad baan rabnaa Soomaaliya sababta ay isu lahayn dalka Soomaaliya oo dhan hal deked lagama biirin karo Soomaaliya maanta federaalki wuxuu ku soo haray xamar afkooda waxay ka tirsan tahay maamulka koonfur galbeed bagas ayaa ka tirsan tahay xamar ayaa la doonayaa ninka jooga Boosaaso ninka jooga Ras Kamboni ninka jooga Gedo in laga soo biiro waana hal deked iyo hal airport okay cid hadda dawladda dhexe adduunka ah oo budget support siisana ma jiro dhaqaalihii dawladda dhexe loogu talagalay way ku jireen in ay dhammaan meelaha dawladda dhexe sida federaalada adduunka uu yahay inay qaadato lacagtooda ay ku jirto dekedaha dekeda berbera dekeda Boosaaso dekeda Kismaayo nin qof dad baa markay dhaqaalihii qaadanaya customiska ku yaala xuduudaha dalka laga soo galo airportada yani dawladdii wixii dawladdii dhexe wixii ay dadka ugu shaqayn lahayd lama siinayo shaqadiina waa laga rabaa generaalka jooga Garbahari wuxuu leeyahay mushaarka xamar laga soo diray Kismaayo ciidanka jooga waxay leeyihiin mushaarka xamar laga soo diray Garowe iyo Boosaaso ciidanka jooga waxay xamar laga soo diray xamarna waa dekeda kaliya lama dawladdu lama soo diray si fiican marka dekadana cid way biili karaysaa waxba ma jiraan budgetka hadduu qoran yahay haddii kaleba dawladdu budget ma heli anigu 6 bilood mushaar ma qaado asa wasiir ahaan xildhibaanadu intaas soo bilood ma qaado shaqaalaha dawladdu intaas soo kale ma qaado waayo qaabka dawladnimo ee aynu u dhaqmaynaa iyo dawlad baan rabnaa ismale taas waa tan guud marka dawladdu ma awoodo dadka wax ka sugaya inay biisho ma awoodo ama tamar darrada xagga maamulka ah ee wali fidin aan noqoto marka meelaha waxa isku celcelinaha leedahay waxa ay yeerka systemka Soomaalidu qaadato hano taas waa taas annagu dhinacan kale kalama minhiin warbaahinta kale annaka haysiinta maadaama dadku fariimo kale naga sugayo way limit waa tusaale ahaan TV-ga qaranka oo kale 10 haysiinooda ayaanu ku koobnay wasaaradda maaliyadda noogu shaqeyn oo waxaan ku contribute karaynaa waxa dawladda budgetkeeda baan ku dar safaan marka inta aanu qaadano shawshi kuma qabano si ay ku yeeshaan annaga isku safaan kale waa taada ma santahay dhawaan xeerka saxaafadda la filayaa in ka soo 15 cisho dib loo dhigay in baarlamaanka la meel mariyo xeerkan muddo soo socday waa lagu soo rafaaday waa isqabqabsi badan wax lagu guuleysay baarlamaanka la geeyo haddana waxaan kaaga mahad celinaynaa inaad shirka halkan aad tiraahday ka wasiir ahaan inaad tiri balse federaalka goboladooda looga qayb galiyo 15 cisho dib loo dhigo wali saxaafadda madaxa banaanay waxbay ka tatabanaysaa marka aad federaalka ka soo jeesato arintooda ma laga yaabaa in saxaafadda madaxa banaanna ay loo soo jeesto si wax midaysan oo aan isku wada faafaqsanahay baarlamaanka u meel mariyo insha Allah horta marka soo mahadsantahay sharciga saxaafadda Soomaalidu horta sharciga waxay ka qabtaa shaqo waa ka cararaan sharcigu horta waa wixii adiga noloshaada iyo systemkaaga iyo adiga ku badbaadinayay adigana dadka ka badbaadinay si fiican marka horeysa waa in dadku sharciga ay u arkaan wax wanaagsan mid labaad solid maaha meel ma yaal maanta hadii uu wax la ansixiyo berri waxaan awoodnaa lagu dari karaa inaan waxna ku darno waxna ka bedelo marka horeysa ummadda Soomaaliyeed waxaan dhahaa shuruucda si aamina dadku noloshoodu ku dhisaa noloshoodu ku artistic gareeya maalinba meeshii ay noloshoodu u socoto u socodsiiyaan waa sharcigu waa wax la bedeli karo saacad kasta waxna lagu dari karo taas marka halka ka baxo sharcigana wuxuu soo socday 9 sano anigu waxaan ahaa qofkii draftigii ugu horeeyay baydhaba ku sameeyay baydhaba la soo jaamac jangeli baan ku wareejiyay 9 sano inta workshop iyo inta seminar ama loo qabtay media horta magaalada Soomaaliyeed oo lagu qaban way yiri safiican maamuladan hadda aanu daayay waqtiga siiyay mid aan la geeynin
laakiin dawladdu way isbedelayaan anigu wasiirada waxaan ku yiri war anigu sharciyan dawladdiiga horeysa wala wasiirada soo marsiisa haddii nin waliba uu la noqon jiray lama noqon wax dayata hore u socday hadda iyalkooda waxay ka codsadeen wasiirada de waa cusubnahay bal waxoogaa at least aan soo aqrin 15 cashaan siinay waxaan rajaynaynaa inay ka soo jawaabaan oo sidaas uu ku dhamaado idinka warbaahinta xorta idinkana doorar badan baa leedka siiyay system buu maraa sharcigu heerar buu maraa heerka uu hadda taagan yahay حتى أنا قاعد أنا كلامي وإحنا حسوسنا مركي أنا أخريت الكواد كسمة برلمان ورباهين تحرتها أي جد برلمان يقعد صدينا وياه كل وياه حفيز كان شوية وملبس لا تجي وتلا إسلا تجي وين دقيستي مركا حد أنا ولي وحقد كلوج يسكر هدي حتى عبش جبت حتى واحد شعري هنا وحقل هداج وجد وياه أنا كم محموسان أنا كحد قعنتي لو كده ماذا أخرتي كواد با ونجاك أخرتي لبعض يتيس الدحاد أيوم مري هدي بتلوينا هيسان جودي كبرلمان أوسو قد ذكرنا جودي كرتان وحي كيليان كل برلمان كيوشيليان برلمان وينها كسنكينا لكن حتى ستيتيس كان حتى أنا جودي كانوا وياه جودي كإسرائيل سيداسان وحرقا كود حادي يعني بل هلا أقبلوا إن مرتين متدا قاتان وحول بوين سمينا وحي نشكر رحسنا أي أقول absolutely waa tahay waxaan rajaynayaa in xeerkaasna uu noo meel maro sababtoo sharci la'aan cid ma shaqayn karto si loo kala badbaado wariyaashan la xirayo midkan la weerarayo wasaaradda iyada xataa laftirkeeda inaan helno xad u helno waa tahay inta aan uga baxo marka arrimihii saxaafadda dalka waxaa ka dhacay dagaallo gaar ahaan gobollada dhexe mudug galgaduud dad walaalaha ku dagaalamaya dawladdu door fiican ay ka leedahay oo ra'iisul wasaaraha tagay soo laabtay haddana hadda ku maqan madaxweyne maamul goboleedyo kala jira inkastoo ay laba dhinac kala fadhiisteen oo la yiri Axmed Madowna wuxuu fadhiistay dhinaca Garowe Shariif Xasanna waxa uu la fadhiistay ninka la yiraahdo kan haddana isku soo aroori ka wasaarad ahaan maxay xogta ugu dambeysay ka haysan dagaalada horta marka ugu horeysa waxaan amaanayaa runtii Soomaalidu si ka noocay doonto wax noqday dagaalka ugu gurmatay sidaad sheegayso waxa jooga wasiiro dawladda dhexe oo runtii sacrifice oo sameeyay ila soo travel galay dagaalka oo socda magaalada soo gala waxa jooga ra'iisul wasaaraha waa ogtahay inuu laba jeer ku noqdo dadaal ma sameeyay madaxweynayaasha Jubbaland iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo isaguna aad iyo aad u dadaalayo hawshaas maragtay saacad kasta khadka ku jira dadaalka la sameeyay ayaan runtii aad iyo aad u amaanaya xaaladdu hadda aad iyo aad bay u fiican tahay waana aaminsanahay inaan mar dambe gacanta ka bixi doonin oo intaas oo dadaal hadii la isugu geeyo nabad waarta meeshaas laga keenayo maxaa keenaya laakiin marka in maamulka Puntland ay tuhmaan in dawladda federaalka dagaalka wado anigu runtii waa anigu ma aaminsanayn waa dhahay inay dhahaan laakiin dawladda federaalka positionkeedu waa cad yahay Soomaalidu markii wax dhacaan halkii ay duruufta ka qaboojin lahayd waxa weeye waxa laga yaabaa dhaqan ahaan dhaqanka Soomaalidu dhaqan adag weeye oo laga yaabo inuu meel adag qabsado waa marka laakiin anigu waxaan aaminsanahay dagaalkaas in runtii nasiib darro uu yahay qaabku ku bilowday iyo qaabku ku dhacay labadaba inay nasiib darro tahay waxaan anigu wasiir ahaan ka wasiirkii warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqaya dadweynaha Soomaaliyeed ee gaalkacay dega labada dhinacba ama mudug dega iyaga ayaa noloshooda iska hadday nabad noqotona way u fiicnaanaysaa ay walaaloobaan hadday dagaalamaanna sida gaalkacay maanta uu cidlada tahay oo laga kala qaxayo xumaysan tahay ayay noloshooda u darxumaysan waxa siyaasi taladiisa waxba hay waqti iska qaadin inta markaan yiraahdo anigoo personal ma tan midaan hadda afki dawladda ku hadlay asa xildhibaan waxaan ka horjeedaa in xuduudo federaal xuduudo qabiil la sameeyo la kala xadaysto haddii magaaladaasi maanta ama Puntland ka wada tirsanaan lahayd ama Galmudug ka wada tirsanaan lahayd shaqaaqay noqon lahayd shaqaaqo ayay noqon laakiin waa halkii ay ka tahay serious ay ka meel qatar laga daayo waxa soo baxaya warar wasiir waxa soo baxaya warar waxa soo baxaya ah in madaxweynaha Puntland uu taagan yahay maamul Galmudug la yiraahdo sharci ahayn oo ma la fadhiisanayo haddii arintu halka istaagto doorka dawladda muxuu noqonayaa aniga waxay la tahay horta maamul waan sheegnay wax badan waan sheegnay maamuladan totally siday ku dhismeen sidii dastuurku qabay ma Soomaali mudaharaadaysa oo laba gobol iyo ka badan baan xaq u leenahay wadaga dawladda wixii
markii koonfur galbeed iyo kismaayo la sameeyay wixii Soomaalida afkeeda ka baxay waaliga dawladda dhexe iyo systemka dastuuriga waa la khasbay waxa lagu khasbay isteedo aan sharci ku dhisnayn in la dhiso lagu khasbay shacabka Soomaalida ku khasbay annaguna markaanu dadkii iyo beelihii iyo cabashadoodii iyo ayaga raacday ayaanu nidhi warbal Soomaalidu meel yar bay ka xiganaysaa dastuurka systemkii dhamaa ee dhisnaa ee baarlamaaniga habkii ma soo marinay laba gobol iyo ka badan ay ku dhigay qodobo kale oo weyn ayaa sheegaya systemka loo galay federaalka waa diideen hab beeleed bay u diideen hab shakhsi ay u diideen hab siyaasi ay u diideen dawladda dhexe waxay ku khasbanaatay waxa ay u qaylinayaan inay u ogolaato mushkilada waa maanta laga dhaxay dawladda dhexe ayaa maamul aqoonsan karta ama diidi karta maamuladu iyaguna isma diidi karaan ismana aqoonsan karaan marka systemkaasi wuu socdaa annagu dawlad ahaan waxaan noo go'aansan inaanu ku celinno halkii sharcigu ahaa dastuurka loo soo laabto xuduudaha waa la dhisay waa inay baxaan waa inay soo daraaseeyaan dadku siday rabaan inay state u dhistaan dadka soo wareystaan maamulada soo wareystaan madaxda degmooyinka soo wareystaan markaa kadib ay yiraahdaan intaasoo state baa Soomaaliya ka suroobi karaya dadkuna sidaas ay rabaan baarlamaanka keena baarlamaanka Soomaaliyeed ansixiyo markaa kadib fulinteedii la galo taas loo noqon aqoonsiga state leeyahay ama aanu lahayn meeshaas ka soo baxay waa taa wasiirada ma santahay bal gaalka ayaan halka aan ku xirno ilaa 5 magaalo waaweyn oo ku yaala magaalada Muqdisho dalka Soomaaliya guud ahaan ay raadaamin ayaa waxa ka socda baryahan arrimo looga hadlayo higsiga 2016 iyo sida ay dalka markaa doorashooyin uga dhici karaan ama uga qabsoomi karaan ujeedada ugu weyn waxay ahayd in aragtida higsiga laga qayb galiyo dooda dadweynaha iyo aragtida iyo fikradaha ay dadku qabaan sida ay howlahaas u socdaan marka ka wasiiraha warfaafin ahaan ma isleedahay waa sidii saxda ah ee dawladdu ay ku gaari lahayd doorashooyinka 2016 runtii waa wixii sidii ugu fiicnayd ma laakiin sidii laga fursan waayay sidii laga fursan waayay dastuurka waxa noogu qoran 4 sano markii dawladdu joogto inay doorasho one man one vote geyso markii horeba aqli maahay waxa loo soo qoraa haddii la soo qorana dad aan aqli waxa aanu qaban karno wax ka badan bay noo diraan ilaa xabtay waxa loo qoray artaa la yiri hubka ha dhigto 3 sano qabqablayaal beddelkan haysa hubka dadka ha ka dhigto doorashada ha gaarsiiso 3 sano marka horeba aqli maaha marka maadaama Soomaalidu isaysaysato maadaama Soomaalidu aan is-aaminsanayn maadaama Soomaalidu aan waxba iska maqlayn dad baa noo soo qoray 2002 waxa la yiri alifkii waxa la yiri 4 sano kadib nabad keena al-shabaab dalka ka dhameeya hadii ay bidikirey dastuurka meel mariya dadka tiriya xisbiya sameeya doorasho one man one vote federaal sameeya aadiya aqli galna ma si fiican aqli galka la'aantii waxay keentay dhibaatada maanta siyaasadda ku jiro haddana meel aan aqli gal ahayn baa loo socdaa still aqli gal la'aantii ayaa lagu socdaa tala Soomaaliyeed ma jirto Soomaali way isnacday banin buu eedeynaya nin buu qabiil buu waran ku taagaya inay si maskax fayow intay heshiiyaan oo wada aan ka abaarna wasiir dawladdan markii la soo dhisay Agosto 2012 xasan sheekhna doorashada uu ku guuleystay madaxweynaha loo igmaday meesha caalamku waxbay u xil saartay waxyaabahaas waxa ugu waaweynaa federaalkan hadda sheegtay dagaalanka shabaab iyo xoreynta dhulka iyo doorashadii 3 sano kadib in madaxda sare ee dawladdu soo baraarugaan maxaa keenaya oo ay doorasho lala gableeyo oo say u dhici kartaa iyo ma dhici karto dadka lagu mashquuliyo maxaa keenay baraarug ma ahana waa lagu baraarugsanaay waqtigii baa ku yimid intii wixii la qaban karayay la qabtay shabaabkii la dagaalamayay ciidanka iyaga waxa saaran cuna qabatay saaka haddaan nano shabaab aan weerar ku qaadayna rasaas ma haysano hub ma haysano mana soo gadan karno waynaanu aaminsan iyo adduunka ninaana warkaale weerarka nala qaado ma garanaysaa annagu haddaan isnaano dalka xoreey ma xoreey karno dhaqaalana uma haysano hubna uma haysano cunaateen baa nasaaran ciidanka iyagu ma dhisna ciidanka waxaa maanta halkan 2002 alifkii ciidanka Soomaaliyeed jiray ciidan iska masaakiin oo mushaar intaas oo bilood aan qaadan oo saxaboolay abu ah Soomaal garan marka waa lagu baraarugsanaa dawladdu wixii ugu badnaay qaban karaysa ayaa tabatay iyadoo challenge-ga gudaha iyo ka dibadda iyo ka shabaab inta ma wajahaysa dhaqaale la'aanta wajahaysa deedna xilliga aan ku sheegay ayaa ku yimid xilliga macquulka aan ahayn
xilliga ku yimid inaanu markaa dadweynihii haddana la tashano oo u bandhigno inaanu waryaari duruufta aanan ku jirno waqtigii naloo qabtay ee dastuurka ku qornaana waa yimid maxaad ka leedihiin bay maraysaa wixii la go'aansadana waa dadka laakiin wax taxliiliya ama xaaladda Soomaaliya aadka ula socdaa waxay yiraahdaan qaabka ama hanaanka hadda dawladdu ay wax u wado waa qaab ay doonayaan madaxda sare inay dib mar labaad ugu soo laabtaan dalka ma aha qaabkii saxda ahaa ee kalsoonida abuurayay oo shacab kalsooni ku abuurayay oo siyaasiyiinta kalsoonida ku abuurayay taa ka waran anigu shakhsiyan runtii horta marka aan ku leeyahay maanta dadaal waxa socda weyn oo runtii xagga amniga baa socda waxa socda dadaal weyn oo statusku ku dhismayaan baa socda waxa socda dadaal weyn oo dalka dib u heshiisiin laga wado oo ilaa Somaliland in la gaaro la doonayo dadaal kale oo fara badan baa socda anigu waxaan arkaa dalku inaanu hadda buuq siyaasadeed geli karin ma xamili karo haddii caqli Soomaaliyeed shaqeynayo maanta lama dhaheen dalku isagoo shabaab meel walba sida ay isgelayaan oo sida dhibaato u taagantay iyadoo ciidamadu guul gaareen iyadoo statiskii dhismeen laakiin iyaga laftigooda farsamo u baahan yihiin wixii aanay u baahnayn buuq siyaasadeed haddii la galo halkii 2012 kii la joogaa lagu noqon laakiin waxay u taalaa Soomaalidu inay tashato bay u taalaa dawladdu hadday isleedahay iyadu wax go'aanso baarlamaankii xukuumaddu intay fadhiistaan ma isku raaceen shacabka Soomaaliyeed in loo geeyo waxaas oo dhan waxaanu ka adigu dhan kanaad sheegaysan ka waxa ka carreyna iyaga wax raba dalka maxaa u rabtiin idiguna soo laabata u rabtiin inuu timaas qabsado halkiisii ku noqdo misaynu horu socdo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka siyaasiyiinta maanta ku jiray u taalo waxa tusaale loo soo qaadanayaa inaad diidan tihiin axsaabta siyaasadeed inay soo galaan doorashada election ay noqoto oo waxa la rajaynayaa hadda la hadalaya 4.5 kii odayaal si laaluush iyo musuqmaasuq loogu soo baxo arrinta ka war ya asxaabta siyaasadeed runtii sharciyeedii waa la qoray baarlamaanka xukuumaddu yaala wayna tahay runtii anigu waxaan arkaa asxaabta siyaasaddu waxa ugu wanaagsan ee la sameyn karo inay tahay sababtoo ah waaba ka bixi lahaa dalku waxaan uu ku jiro iyo qabyaaladan iyo waxaan waayo xisbi oo national markuu sameysmo dantu waxay ka galaysaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed meeshuu doono gobolku doono ha joogo halka hadda lagu tartamayo qabiilka iyo hadii asxaabta ron xisbiyada hebel bay wadatay iyo waxaas waxa way bixi lahaayeen waxa dadku talada u noqon lahayd shacabka dadka ay watay u noqon lahayd صح qabiil qofkii waxa la dhihi kan waxa ma astaahilo waa anigu asxaabta aad baan taageersan waana laga shaqana laga hayaa laakiin sharciyada baarlamaanka yaalan laakiin maxaa loo meel marin sidaynu maanta isu waafajin lahayn waqtigii oo ina haya iyo wax Soomaaliya u dana oo weyn oo waxa horumar socdaana ku socdaan nidaamkeena dawladda ayna si sharci ah ku socdo ayaa Soomaalida laga rabaa waxaad wasiir ka dhawaajisay dalku buuq siyaasadeed ma xamili karo waa sax mana Soomaalida laftirkeedu maanta dan ugu ma jirto in buuq iyo isqabqabsi la galo in hore loo socdaa wanaagsan wixii la soo qabtay waqtiga la galiyay in la baabi'in adigu ka xildhibaan bata marka wasiirka laga soo tago sharciyada muhiimka ah dalka oo ah waxa kamid ah sharciga garsoorka baarlamaanka la keenay wad celiseen waxa tiraadeen kan hadda lama joogo sidee maxaa looga fursan karaa marka buuq siyaasadeed dalkuna doorashooyin iyo wax u galaya xaalad siyaasadeed madaxda sare isqabqaban kartaa haddaan garsoorka iyo maxkamadihii aynaan hirgelin see looga baxsan karaa buuq siyaasadeed ay runtii waxay la tahay horta garsoorka Soomaaliyeed waa dhisan yahay wuxuu baa ka dhiman mooyee dee sharci garsoor waa jira sidaba dalkeenu sharciyo weligiis dal weyn oo hadda 60 sano كتري وحلة جرا أصلا سوي جرا مركا شرعية وولية dalku sharci garsoor buu leeyahay laakiin hadii uu la doonayo meelaha qaar kood in la horumariyo maxkamadii oo markay dastuurka la sameeyo waa munaasib weey laakiin da baarlamaanku meelaha uu waxyaalaha uu celiyay waxa laga yaabaa inuu meelaha qaar kood leeyahay laga soo bedelay sharciga lama sameeynayo lama laha haddana wuu yahay waxa jira ilaa 2016 inaan dastuurkaas sharcigaas inaan la taaban doonin wallahi su'aasha gudoonka iskale oo hadda jir baarlamaanka haga anigu xubin baan ka ahay waa sax ma santa dhawaan xubnihiina ka soo jeeda dhinaca Soomaaliland waxaad magaalada Muqdisho ku qabateen madaxda sare ra'iisul wasaare ku xigeenka xildhibaanada adiga wasiir shirweyn aad ballaaran oo Soomaaliland ka soo qayb gashay xubno fara badan oo soo kanteen shirkaas waxa la tashiga bulshada rawaqooyi ee ku aadan higsiga iyo dastuurka iyo dawladnimada
dadka xagee laga keenay marka hore xagee ergada 170 ka xagee ka timid ergada 170 ka waxay ka timid Soomaaliland beelaha Soomaaliland dega dadka Soomaaliland dega oo dhan bay ka timid waxay isku jireen sida qaybaha bulshada oo dhan salaadiintii haweenkii dhalinyaradii siyaasiyiintii xildhibaanadii diyaarada xagga looga soo qaaday diyaarada laguma keenin dalkan ay ku nool yihiin 700 iyo 1 milyan ka badan baa ku nool caasimada Soomaaliyeed waa dadkii gobolada waqooyi oo Muqdisho joogay kuwa kalena way ka yimaadeen waqooyi bay ka yimaadeen oo annaka marti qaadnay waa noo yimaadeen oo shirka naga qayb qaatay shirkaas markaa maadaama fursadan siisay laba qodob baa ka soo baxay qodob kamid ah waxaanu kaga qayb qaadanay wixii socday ee ahaa talada guud ee Soomaaliya ka bixinayso dawladnimada Soomaaliya si ku sii soconayso ayaanu qaybteedii ka dhiibay talabaadna waxaanu kaga hadalnay in dalka Soomaaliyeed u baahan yahay siyaasiyan si midnimo loo helo in lala yimaado qorshe siyaasadeed oo Soomaaliland lagu soo dhaweynayo shacabka Soomaaliland waad ogtahay dal buuxa oo 1960 ka qaatay xornimadiisa Ingiriiska wuxuu la midoobay 1 July dal kale oo Soomaaliya la dhihi jiray oo xornimadiisa ka qaatay Talyaani markii la isu yimid Act of Union kii la galay waxa la yimid niyad wanaagsan oo shacabka Soomaaliland oo siyaasiyiintii yiri waxaad noo keeni kartaan oo kaliya midnimo wax kale oo dhan adaa raba anaku ma rabno midnimo laguma soo noqon karto siyaasiyiintii halkan yimid sacrifice kaas isla markiiba koonfur sida maanta la isugu haystaa markay yaabeen gudoomiye iska qaateen gudoomiye baarlamaanka tan waxay yiraahdeen waa horta idinku la maanta qaato wax inoo dhis anagu ma noqon karno dib uma noqon waa la neertigay midnimadaas iyo dadka niyadii wanaagsan la yimaadeen waa la dayacay ila maanta waa dayacay ergooyinka halka ka soo baxay waxay yiraahdeen annagu waxaan u aragnaa Soomaaliya inay dib ugu dhisato true federalist sidii 60kii lagu midoobay inaynu haddana dib ugu midoobo idinku ama shan isu jijibiya ama maamul goboleedyo noqda ama status noqda idinka idinka labo inaan waqooyi koonfur aniguna saasan aaminsan aniga wasiirka maxaa laga yeelayaa marka maamulada gobolada waxay doonaan ha noqdeen weyn Act of Union kii dib loogu noqdaa weyn siyaasiyan loo heshiiya midnimadu ay ku timaadaa hab la taageersan yahay oo dadka waqooyiga ay ku qanci karaan oo niyadii wanaagsaneyd ee la yimaadeen hadday ku goobeen maanta la noqdeen way niyad wanaagsan maanta miiska loo saaray waata su'aal baan ku weydiinayaa halkan way jajaban tahay Axmed Madoobe iyo Shariif Xasan iyo Cabdikariin iyo team kale oo hadda la aasaasay waa shan madaxweyne madaxweynaha isteedka sare ah Soomaaliland laakiin hadda waa hal madaxweyne ma iyaga la jajabinayaa iyagana madaxweynayaal baad u sameynaysan oo sida la mid ah mise kuwan ba madaxweynayaasha laga soo qaadayo koonfur hal madaxweyne yeelanaysa Soomaaliland hal madaxweynaha laba unit la sameynaya horta marka ugu horeysa anigu halkan dawladda Soomaaliyeed ku dhisi maayo siyaasadda Soomaaliland ay qabto shacabka Soomaaliland qabo ay sheegay marka kadib markii farsamadii loo tago waa heshiiso waa ta su'aal muhiim ah inaan ku weydiiyo shirka halkan aad ku qabateen marka idinka madaxdii Soomaaliya ah laakiin deegaan ahaan ka soo jeeda halka wuxuu xagga ka kiciyay xiisad aad u ballaaran macal salaadiintii xildhibaanadii wasiiradii go'aano adag la qaato xataa saameyn waxay ku yeelatay xiriirka Soomaaliland iyo dawladda Turkiga in la yiraahdo dawladda Turkiga ka baxdo halkan qonsulka degan halkan ka baxo qonsulka inuu negotiation iyo waan galo xiisada inta la eegad abuurteen ya qaadanay mas'uuliyadda ilaa wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya u socday haddana Soomaaliland waxay tiri wada hadal daba gali mayna marka haday sidaas sameeyeen horta marka ugu horeysa Turkigu ay umaleyn maayo inuu isagu wax shaqo ku lahaa ergadii halkan isku saasa loo arkay wada hadallada wax shaqo uu ku lahaa ma jirin madaxda Soomaaliland hadda ka talisan waxa loo baahan yahay siyaasad Soomaalinimo oo haddana xaqiiqdiina dadka ay ku helayaan in la yimaadaan Soomaaliland annagu Soomaaliland baan ka soo jeednaa shacabka Soomaaliland waa metelnaa waxaanu ku metelnaa dan tooda oo midnimada Soomaaliya ku jirta taan hadda ku sheegay oo Soomaaliya ay dib u midowdo two federal states sidii 60kii lagu midoobay ayaan ku midnaa kadibna la qaybsado power sharing kale ee dawladda la qaybsado ayaan ku midnaa waxaan u aragnaa maanta adduunku maadaama uu midoobayo inaanay waxba Soomaaliya inay gobollo yar yar oo
oo tamar daran عمارة يرير noqoto inaan faa'iido ugu jirin ganacsiga Soomaaliland inaan faa'iido ugu jirin shacabka Soomaaliland inaan faa'iido ugu jirin gobolka inaan faa'iido ugu jirin Soomaaliya mida oo dadku system baa dadka tanqiya America waa konton dawlad konton federal state waana ganacsan waxay ku noqdeen powerka adduunka ay ku noqdeen haday Minnesota halkan iyo halkan noqon lahaayeen waxa ma gaareen waa in vision dheer la yimaado oo Soomaalinimo in la yimaado marka laakiin visionka iyagu kaas weeye in Soomaaliya dib u wada hadasho midnimadii Soomaaliya sidii ku sii jiraysa laba dhinac loo hadlo laga wada hadlo dadka Somaliland xaqoodii la siiyo taa waa in ka siyaasadda gabagabadii marka waa waraysiga kugu dheeray waa kaaga mahad celinaya la xarba mid muhiim ah oo intaanan gabagabada kala galin mid muhiim ah wasaaradda warfaafintu waa afka dawladda Soomaaliya afayeenna marka wax dhacaan dalka wax ka dhacaan waxay rabaan ha noqdaan fantasy ha noqdaan dhacdo qarax ha noqdaan 20 afayeen oo kala duwan baa imaanaya way hadlayaan taliyaal ciidamada imaanaya way hadlayaan intaan wasaaradda la soo gaarin ba hadallo control waxay isku ka hadlayaan isburburinaya wasaaraddu afayeenadaas wararka ay bixiyaan ma ku qanacsan tahay aad baa horta u mahadsantahay su'aasha inaad weydiiso waana su'aal aad macquul ah oo aan dawladda ahaan heer gole wasiiro looga hadlay waxaana keenaya runtii dabcan dawladdu dalku waa dhisma dadku niyad fiican bay hayaan dawladnimada niyad fiican oo hayaan qof wuxuu jecel yahay inuu warkii muddada shacabka mar hore wax gaarsiiyo dadaal weeye niyad wanaagsan weeye laakiin coordination baa la ka rabaa صح taasna waa wadna halkan 15 cashaba mar baan afayeenada dawladda iyo xataa kuwa amisom hal aad lagu hadlo ugu qabanaa shir dabcan codad kala duwan baa lagu hadlaya laakiin haddana markii wax dhacaan waa la kala leeyahay tusaale ahaan booliska ayaa guryo baaray dabcan afayeenka boolisku waa marka صح صح nabad sugidda ayaa soo qabatay shabaab iyo dad soo qabatay afayeenka wasaaradda amnigu markaas positionkiisii laakiin aan positionada la isku khalday وتصالحان قرح أو كله عدو عقف واللي بقانو ميل ميكروفون كقطع إلا مركز بوليس كواجوجا وسارد ديواجو تاني بتسوي ترى ده وقل ضيان ماشي واحد على وقل ضيان السركت مركز كلهم بانو لنا شن يتمن كعشوا مرة وانقص حين وانده إنه نفيين هبل عدو بوليس كدور كعوا إنتن وسارد وإنتاس مرمر باني وسارد الجالسين رئيس وسارون وحلا أي تاي شن شردا وفافين الدولة ده وهو وزارة الدولة هاجر قارة عامود الدولة وزارة الدولة هاجر أما حتى وزارة حتى أنا لقيسي هبوية أو وين أو ناشنال كلا جهة مركز لقصة تجا مركز دعدو أي أفيان هذا يطلياش يحملون النقص يعان ومتبوح الرنوش جاية مركز دعدو حيصت كوين سيد الديارات دي كل على أفجو يششد هذا أنت أقول حسب وين أفجو سدي دتكو يكو حمنا يعني إن دت أجانبنا ودي هم نسدي هل عفيانو كهل أو أن الميكروفون كله أذن متجرا مركز هو الديدان إنه كهلان وزارة دون كما هذاش مدحوينه كما هلن رئيس الوزراء كما هلن أفيانو الحكومة كما هلن ما أرمى سكر الله قرينه دت كاس عجيب كده بين horta marka ugu horeysa idinku xaq waxa u leedihiin xog dastuurka waa ku qoran tahay inaad xog heshaan xogta dawladda xogta dhacdooyinka inaad heshaan waa xaq dastuuri iyo warbaahintu inay warkan raadiso heshaan laakiin de wararka maadaama wax midda waxay raadiseen mar aanay bislayn oo warkii wali afayeenadii maadaama ay meel duura ku dhacday laba bilood ka soo wareegtay ilaa hadda ma bislaan markaana hadda ku siinaya wax laakiin mar aanay bislayn inay raadisaan baa laga yaabaa laakiin diyaaradda dhacday waxa weeye kolleyba sidaad u maqasheen diyaarad oo u socotay meelo xarumo dawladda ay leedahay wararka aanu annagu ilaa hadda helnayna hubna ma wadin dadna ma wadin inay hawl meel ka qabato wax ka qaaday ku ahayd darawaladii bayloodadii waday mooyee cid kale ma wadin marka ilaa inta aan bayloodada xagee ku dambeeyeen intaan hadda ka hayna intaas weeye wixii xoog ah kale way siinaa gabagaba marka waa kaaga mahad celinayaa ugu dambeyntii haddaan kula kaftamo wasiir waxaad ka soo jeedaa dhinaca Somaliland xubno fara badan oo dawladda ku jiraan waxay ka soo jeedaan dhinacaas xilal sarsare ayaad soo qabatay ama kuwa kaleba ay soo qabteen marka aad madaxdiina Somaliland xilalka ka haysaan madaxda dawladda Soomaaliya aad baad u hadashaan waxaadna soo hadal qaadaan in midnimada Soomaaliya ay tahay muqadas waxaad dhinaca u riixdaan dhinaca Somaliland iyo howleeda waxa dhacday madax fara badan
oo hore xilal halkan uga soo qabtay in ay hadda dib markay ugu laabteen Somaliland inay yiraahdeen waad ka toobad keenay wixii waxaan aaminsanahay qadiyadda Somaliland sida Ismaaciil Buuba iyo Professor Samatar marma laga yaabaa marka wasiir Maareeye markaad halkan xil ka weyso inaad inta deegaanka dib ugu laabato aad tiraahdo anna waa toobad keen runtii waxaan dhihi karaa horta marka ugu horeysa marka aan Ahmed Ismaaciil Samatar iyo Fiiriyo Buuba oo kale dad waaweyn odayaala aqoon-yahaniina muddo dheer Buuba oo kale halkan u fadhiyay uu fadhiyo xumeeyay midnimada Soomaaliya laakiin sidaan warkii hore ku sheegay ma jiro fishan midnimo Soomaaliyeed oo halkan yaala inkastoo aan dhihi karo dalku dagaal buu ku jiro dhiig joojin baa lagu jiray wixii aad ka horreeyay lama yeelan karin ba fishan qarannimo lama yeelan karin guri walba waxa laga bixinayay dhibaato iyo koonfurtu dhibaato ku jirta dagaal bay ku jirta Somaliland bay ahayd inay u soo gurmato oo nabadayso oo walaaltinimo muujiso waxay doonto wax qabtee nabad mar hore dejiso inay wixii dantoodana ka qaataan dawladda Soomaaliyeed wax ka dhisaan way iyaga ma yirqabin wax badan oo ku martiqaadnay salaadiintooda iyo inay halkan yimaadaan oo dadka nabadeeyaan oo haddii markii hore ay tabashi jirtay markay nabadeeyaan kadib tabashadaas ay xalliyaan aniguna saasaan jeclaa marka Ismaaciil Buuba oo kale intaas oo kale marka hadda waa taa marka aanu kulankan ka soo saarnay maanta waxa la joogaa maalintii la sameyn lahaa fishan ama aragti cad oo midnimadii Soomaaliyeed ugu raadin midnimada Soomaaliyeed baan raadinayna marka uu reesay muddo badan raadinayna kan noogi mayno ka daalimeyn marka daashad xil weyso ka ma xilku ma xidna wax badan baan xil aan haynin xamar joogo marka xilku ma xidna laakiin kullayba ugu dambeynta dad iyo dad baan metela صح haddaan xuquuqdooda waayo waxaan ku qasbanaanayaa inaan waxa ay u badan yihiin qaato waa marka aan waayo rights-koodii waayo halkan ka waayo haddaan ka waayo ma day dhacdo oo taasaan kuu sheegayno ah war dadkan 60kii sacrifice bay sameeyeen dhibaato ay tirsanayaan waxay u baahan yihiin in dadka Soomaaliyeed ee koonfurta deegaan markaan iyaguna sacrifice la yimaadaan inay qorshe ay ku qancaan oo midnimadii ku qaataan la yimaadaan dee u malayn maayin la waayo waa common interest waxaan isleeyahay kuma hungoobaysid waxaad aaminsantahay mana dhici doonto inaad tiraahdo wax la cafi هذا ما صدق وزير gudahaan daawadayaal waraysigii koobnaan xafiiskiisa kula yeeshay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye inta ayaan ku soo gaabinayaa dhanka kaamirada oo reed ayaan u mahad celinaya dib intaan u kulmi doono waa aniga Cabdiqaadir Dulyar Wadale